الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام الدمان ومديدة ميل كستا جوجتان أي هوب دمانتين على دنتين عافماد قبطان نمعيسانتين ميل كستا حلي كستا إيو ساعات كستا يدينتانا الله سبحانه وتعالى إنكو حفتي وانو النادي وانو قيدنكو سو نقضي يا نظر فيديو أي هوب دمانتين على دنتين عافماد قبطان إن شاء الله بإذن الله كرن عاو وقتي أيان هايستان مركم حربين لبادن فيديو آن إسرائي إن شاء الله بإذن الله كرن سودو هذا دمانتين ميل كستا جوجتان فيديو إن شاء الله بإذن الله كرن فيديو كان عاو وحان كهدلينا shan masalo ama shan rule oo ku caawimeysa ama in aniga ay caawisay markay noqoto budget markay noqoto dhaqaale inaad yeelatid xoolahaagana aad ogaatid meesha ay marayaan insha Allah bismillah karin wax kasta markay dhaqaalaha noqoto dhaqaaluhu sidaadaba waa personal aniga waxa ay shaqeeya adiga kuma shaqeynayaan qof kale uma shaqeynayaan wax ka budgetka sidaynu u save karayno goolasheena qofku wuxuu rabo lacagta sababta uu meel u kharashkeena guryaheenu degana inaga dhan kala gaar baynu nahay isku mid manihin qofna qofka kale lama midha marka qofka wixii isaga u shaqeeya ayaa isaga u muhiima oo u shaqeynaya insha Allah bismillah kan laakiin waxa jira waxyaabo rule ah ama waxa jirto waxyaabo qof kasta oo dhaqaale raba bedelaya noloshiisa ama dhaqaalihiisa xoolahaagana ina adigu u talisid ayaa muhiim sababtoo ah waxa la xooluhu qaybna lacagtu dadna iyada u talisa dadna iyaga u taliya markay ku taliso waa marka aadan ogeyn xoolahaaga meel ay mareen waa dukaan walba aadaan qofkii soo hadlabaad siisid qofkii ku weydiistaba aad deemisid meesha wax kastoo aad rabtid aad iska gadatid wixii aad aragtid samaysid markaas oo aadan ogeyn lacagtaada meeshay gashay taas lacagtaas iyada ku talisa lacagtaada markaad budget u yeeshid qorshaysid wixii aad u baahantay ka gadatid sadaqadii aad rabtay ka baxsatid danahaaga ka raacdid qofkaad u baahantahay siisid save garaysatid investing ku samaysid adiga ayaa u taliyay lacagtaadii oo lacagtii adaa control kule halkan fadhiiso sidan yeel noloshuna sideedaba waxa fiican in aad adigu controlkeeda haysatid wuxuu markay controlkaaga ka baxaan is difficult way aad bay u adag tahay in aad xasilooni heshid sababtoo wixii controlkaagu ma jira waad hadaan unugaaga aanad rabaayada barin oo aadan oran way banaanka markaynu qaylin hadlin dadka ku boodin ha aytamin banaanka markaad aadid umada dhan baa kula yaabayso aytamay ma celin kartid ilan gurigii baanad ku control gurigii baanad rabaayad ku barin gurigii baanad tarbiyad ku badan banaanka markuu aad ma control kartid marka wax kasta oo noloshaada aadan tarbiyad u yeelin ama control ku sameyn oo aadan ma control kartid farahaagu ka baxaya marka dhaqaaluhuna waa sidaas marka insha Allah bismillah kan fiidiyoga waxaynu kaga hadlaynaa 5 arimood oo marka aad rabtid inaad dhaqaalahaaga horumar gaadhid very important ah muhiim ah inaad ogaatid deemeynad exactly inay sidatan kuugu shaqeyn laakiin at least idea weeyaan waana wax muhiim ah oo qofku u ogaado meeshu kaliya marka insha Allah rule number 1 waxa weeyaan ogow dhaqaalaha ku soo gala lacag intee la ku soo gasha marka ugu horeyso ogow lacagta ku soo gasha inta ay tahay sidoo kale iyo kharashka ka baxa deyn ma lagu leeyahay deyn adiga ma ka maqayhay meeqa deyna lagu leeyahay so the first rule waxa weeyaan income-ka ku soo gala ogow income-ka ka baxo ogow deynka lagu leeyahay ogow exactly markaas ku aan badkaad rule number 2 waa budget yeelo xoolahaaga budget garay sidoo kale budgetka markaad budget samaysid lacagta ka baxaysa kaba soo qaado kale maanta grocery foodka cuntada banaanka aad ku soo adeegatay adeegkaagu waxaad u budget garaysay $250 weekly markaad adeega aadid oo soo adeegatid 250 miyaad ku soo adeegatay ka badan miyaad ku soo adeegatay ka yar miyaad ka soo adeegatay taasina waa muhiim ugu lacagta ka baxaysa oo aad ugu tala gashay meel budget bad markii hore samaysteen oo rule number 2 waa budget bad samaysay guriga biilashiis budget bad u samaysay cuntadaadi banaanka budget bad u samaysay adeegii budget bad u samaysay shoppingkii budget bad u samaysay caruurta activity-goodi budget bad u samaysay okay adeegaagii $250 bad waxaa tiri week walba weeyaan kaba soo qaad big family baa tahay markaad adeegii soo adeegatay weekii 250 aad ugu tala gashay miyaad soo isticmaashay miyaad ka badisay miyaad ka yaraysay week walba markaad saa samaysay ama every 2 weeks hadba sidii aad u adeegatay markaad samaysay waxay ku tusaysaa lacagtii aad ku soo adeegatay oo ugu tala gashay budgetka ma kugu filaatay ma ka yaraatay
miyaad u baahan tahay lacagtii inaad kordhisid oo lacagtii aad bid xiriir kugu ahayd miyay kugu badatay oo waxaad oran kartaa okay wallahi $1,000 baa ahayd supposed inaanu bishatan ku adeegano laakiin 800 baan kusoo adeegano markaa waxaad ogaanaysaa lacagta kaa baxda meeshii lacagtu ku yareyd ayaad lacag u kordhinaysaa meeshii ay ku badnaydna waad ka yareynaysaa soo inaad xoolihii taragaraysid waa muhiim cunugaaga oo kaleba activity qaada sameeya $200 baad ugu tala gashay 200 waxaad aragtay bil walba oo 350 ku bixisid marka waad aragtaa haddii aadan ogeyn waxaa kugu dhacaya dismoral niyad xumaa kugu dhacaysa laakiin markaad ogaatid in uu 200 aad ugu tala gashay cunuga activitygiisa inay ka yar tahay lacagtii marka waxaad gaadhaysaa go-aana inaad kordhisid lacagtii oo meel kale lacagta kasoo saartid ama budgetkaaga aad badisid marka inaad budgetka markaad yeelatay wixii kaa baxayan inaad tiragarayso way fiican tahay si aad u ogaatid wixii kaa baxay oo bishu markay dhamaato aad tiraad okay bishatan biilasheedi intay ahayd ood ogaatid exactly intaad u baahan tahay inaad kordhisid iyo in kale taasi waa rule number 2 muhiima waxa weeyaan lacagtu markay kusoo gasho ama Afrika joog ama Soomaaliya joog ama Yurub joog ama qurba joogto ama qurba joog ama wadankii joog lacagtu markay kusoo gasho ama bil kusoo gashaya ama week kusoo gashaya ama 2 week kusoo gashaya intaadan biilasha bixin lacag ka save garay intay doonto ha noqoto maxaa ka soo gaa sababta already budget waad samaysay oo number 2 ha oo waad ogtahay meel bil walba number 1 waxaad soo samaysay lacagta kusoo galaysaa dugeed iyo lacagta kaa baxaysa number 2 budgetkii waxaad ogaatay number 3 waxa weeyaan taada biilashaada bixin lacagtu markay saa kuu soo gasho lacag ka saar $10 noqotaya 20 noqotaya 100 noqotaya 200 noqotaya 500 wixii aad awoodid ka saar bisha horaanteeda intaanay bishu dhamaan ayuuto haddaad ku galaysay iyo haddii aad saving dhiganaysa bal lacag muhiim ah intay doonto ha noqotee intaadan biilashaada dhammaan intaan bisha bartankeeda la gaadhin intaan bisha aakhirkeeda la gaadhin lacag ka save garayso taasi waa rule aad iyo aad u muhiima horumarna waa waxyaabaha ugu horeeya oo inaad deyn u baahan iyo inaad dhaqaale yeelatid number 1 ka ah sababtoo ah marka ugu horeyso oo $100 ka saartid lacagtii $100 lacagaadan lahayn buu kuleeyahay meel baad gelisay musiiro halkanaad ku cajuuftay ama koombaad soo dhigatay aadan ka daba tegayn lacagtii kale oo kuu soo hadhay ayaad biilashaada ku bixinaysaa haddii aad sugtid bisha aakhirkeeda lacagta dhan markaad biilasha bixisid lacagtii dartid hadday xataa 200-300 kusoo hadho waxaad moodaysaa inaad lacag haysatid saad u cunaysid ama qof kale siinaysid ama dukaan la aadaysid ama cunuga wax ugu gadaysid ayay lacagtii dhammaanaysaa soo bisha aakhirkeeda weligaa ha sugin marka ugu horeysa lacagtaas rule number 3 waxa weeye lacagta save garee waxay doonto ha noqoto ilaahumay $50 noqoto ilaahumay $10 noqoto bisha aakhirkeeda haddii lacag kuu soo hadhay extra ah haddaa doontid qayb kusii dar meeshaad galisay haddaa doontidna ku baashal oo sidaa doontid yeel laakiin ma aha excuse ma laha in aynu nidhaahno lacag ma save garan karo sababtoo ah wax kasta oo ina soo galo waxaynu ka save garan karnaa ilaahumay $1 noqoto ilaahumay sentiye noqoto ilaahumay noqoto bisha horaanteeda ama wiiga marka lacagta lagu siiyo sidii hadba wax kuu soo gasho ma bilba kuu soo gasha ma weekly bay kuu soo gasha ka saaro lacagta yar ha noqoto lacag saving ku ah ama kayd hadba kaynu noqon oo kayd kuwa ood meel dhigatid soo number 3 walaalayaal waa rulkaasi waa muhiim waa rulka horumarka ku horseedaya ood kaga raysanaysid dayn inaad qaadatid adigana niyad ku qaboobaysid ogtay inay wax meel kugu jiraan hana dhayarsan hana yaraysan lacagtaasi way ku badanaysaa insha Allah bismillaahi karin so saving waa number 3 number 4 waxa weeyaan everything oo aad u baahan tahay haddaad banaanaadaysid haddaad dhar soo gadanaysid haddaad ciyaalka meel keenaysid everything oo aad muhiim ku ah gurigaaga budget garay si aadan savingkaaga uga daba noqon waxaad ogtahay bisha tan inuu Maxamed Yar Sports leeyahay $100 baa lagaa rabaa $50 baa lagaa rabaa budgetkaaga ku dar waxaa bisha tan aad u baahantahay carruurta inaad timaha ka soo geysid budgetkaaga ku dar waxaad u baahantahay bisha tan faarax yare baa kabihii ka dhamaadeen budgetkaaga ku dar sahraad rabta inaad timaha soo dabtid ku dar adigaa rabaa inaad cidiyaha soo samaysatid budgetkaaga ku dar
haddaad wiil tahay adigaa raba inaad aadid shopping, adigaa raba inaad timaha samaysatid, adigaa raba inaad wax allaale whatever aad rabtid oo ku muhiim ah budgetkaaga ku dar si aadan ama saving uga daba noqon ama aad wixii aanad u baahnayd aadan samaysan. sababtoo nolosheena ilaahay baa ina siiyey, dhaqaalaha ilaah baa ina siiyo, ina soo geliyey. waa inaynu waxayna manage karayno, laakiin wixii aynu rabna ina samayno oo muhiim inoo ahaa maaha wax kasta wixii muhiim inoo ahaa. soo wax kasta oo muhiim ku ah budget garayso, ama bishii sinkin fan samaysatay iyo ku ridaba, ama bil walba wixii muhiim oo aad rabtid budgetkaaga ku darso. waa shayga kaa dhowraya in aadan adiguna dareemin cidhiidhi, dayn qaadan, lacagtay aad budget garaysatay adigoo watabaad seeloo ka tegaysa, caruurta timaha hagaajinaysa, adigu soo samaysanaysaa, restaurantiga tegaysa, wixii aad u baahnayd soo cunaysa. so everything aad u baahantahay oo muhiim ku ah adiga iyo gurigaaga budget garayso. sidoo kale rule number 4, markaad wax kasta budget garaysanaysid waxa kugu soo socda ood og tahay. haddii odaga insuransigii gaarigiisa, haddii odagii rabo inuu meel aado, haddaad rabtid bisha dambe inaad 3 soo booqatid, haddaad rabtid 2 bilood kadib inaad hooyadaa soo booqatid, sii budget garay, sii yaryarayso lacagta wixii kugu soo socda. haddii gaariga insuransiga iskugu soo socdo, haddaad travel kugu soo socdo, haddaad rabtid qof aad ballan u qaado inaad lacag siisid, sii yaryarayso oo wax kastaba budget garay oo sii ballan garayso. kaas waa rule number 4. rule number 5 waxa weeyaan waxaad kala ogaataa waxa aad rabtid iyo waxa aad u baahan tahay. labada aad baynu isugu khaladnaa. waxa aad u baahan tahay waa adeega gurigaaga, waa dharka winterka, waa kabaha, waa dharkaad xidhanaysid, waa caruurta dharkay xidhanayaan, waa korontada, waa yacni waxyaabaha muhiimka inuu u baahanahay inaan noolaan karin, iyo waxyaabaha rabitaanka. dukaan baynu tagnay, shay qurux badan baynu soo aragnay, waa rabitaan. isweydiid ma u baahanahay mise uma baahani. waxaa jirta boorso aan rabay muddaba, maalin dhaweed wiikakan waxaan arkay iyadoo sila 3 days ka hor 4 days ka hor oo meel lacagtii lagu gadi jiray lacag ka badan aad uga yar la gadayo guri weyn ba ay qabtay. waxaan damcay, waxaan ku sigtaxtay inaan iibsado. haddana waan isweydiiyey runtii naadiyo miyaad u baahan tahay boorsadan? waa ogahay inaan jecel rabo, laakiin miyaad u baahan tahay bishatan? maxaa kaaga muhiimsan boorsada lacagta qaaliga intaad gelin lahayd? maxaa kaaga muhiimsan? marka waan gadan karayay, laakiin necessary maaha. waxaan u baahanahay maaha waxaan rabo. waxa aad rabtid waad sugi kartaa. marka aynu kala ogaano waxa aad rabtid iyo waxaad u baahan tahay. anu marba waxaan idhahdaa qofku wuxuu u baahan yahay oo aad u rabo ha iibsado, laakiin ha budget gareeyo. markaynu kala ogaano ma u baahan tahay mise waa rabtaa. hadday baahi tahay waad ku khasbantahay wixii aad u baahnayd inaad gadatay, sababtoo noloshaada ayaa u baahan oo waxaad ku khasbantahay. hadday tahay wax aad rabtid, haddaan maanta waxa aanu rabo aan gato, dhaqaalahayga khasaar mau keenayaa, caruurtayda gurigayga khasaar mau keenaya, lacagtaa maanta ma ka maarmaa? jawaabtu tahay may kama maarmo. maanta $500 inaan shaygaa kusoo gato ma awoodo. okay, waan sugayaa. sug. waxaa kaloo jirta rule la yiraahdo, aniga maalintii boorsada markaan rabay, maalintii oo dhan niyadayga jirtay, markaan faraha ka qaaday next day waaba ilaaway. waxaa jirta rule la yiraahdo sug 2 casho. shayga marka aad rabtid markaba ha degdegin, sug maalin 2 casho sug. haddii weli maskaxdaada kusii jirto kaa guuxayso waa rabaaye yala boorsadii yala haddaan gadan laha, waad aragtaa inaad rabto 2 days kadib, haddaad weli sidii wixii niyadda uu kaaga jiro aad rabtid, balaan samey sidii aad ku gadan lahayd. lacag bil walba budget garee, laakiin ha ku degdegin wax aadan awoodin oo hadhow khasaaro ku geliya. waxyaabaha inta badan geliya dhaqaalaheena dhaawaca waxa weeyaan wixii aynu rabnay oo aan ahayn baahida ayaynu ku degdegnaa. laakiin haddaad sugtid oo tiraad okay shaygan waan rabaa, inay weli niyadaadi ku jirto 3 casho kadib inay ku jirto, okay balaan dejiso, lacagtii sii ururso, maalinba bilba xoogaa ku rid lacagtaadii adiga oo haysta, trust me, oo gacanta ay saa kaashkaaga kugu jirto. markaad dukaankii aad rabtay shaygii aad soo gadatid waxaad dareemaysaa farxad, sababta dee laguguma le lacagtaadi baad save garaysay, shaygii waad enjoy garaynaysaa. laakiin waxaa laga yaabaa shaygii mar aad degdega kusoo gadatay inaad qoomamayso. so insha allah bidmillaahi karin. rule number 5 waxa weeyaan isweydii waxaan ma u baahan tahay mise waad rabtaa. hadday rabitaan tahay, maskaxdaada hadday ka bixi weydo 2 casho 3 cashood wixii kugu sii taagan yihiin is balaan garay.
haddii aad awoodid maalintaa gadan karaystid oo aanay ahayn wax dhaqaalahaaga dhaawacaya, wax biilashaada wax yeelaya, wax reerkaaga wax yeelaya, wax aad ka maarmi kartid ood xoolo u haysatid go for it. laakiin insha allah bidmillaahi karin haddii aadan awoodin sug insha allah billah kale maalintaad lacagtaada urursid ood soo gadatid xarago iyo qurux adigoo ah ayaa dareemaysaa boorsada markasta aad ka qaadatid ama shayga markasta aad qaadatid waxaad dareemaysaa guul inaad gaadhay sababtoo ah naftaadii baa tababartay in aad wixii aad rabtay u safe garaysid. noloshu ilaahay ayaa ina siiyey wixii aynu rabno waynu gadan karnaa laakiin waa inaynu balaan garayno, waa inaan nafteena tarbiyad barno. waxyaabaha hadda anigu alxamdulilah budgetku aadka ii baray waxaa weeye naftayda ayaan tarbiyadeeyay. boorsada maanta haddii ahaan lahayd dhowr sano ka hor maba kala jeclaadeen, xataa mau baahan tahay iyo isma weydiiyeen intaan aadan soo gadan lahaa. laakiin waxay ii bartay tababar ah shaygaasoo ma rabo okay balan garaynaya, bil hebla ayaan garanaya, dhowr bilood lacagtii baan sayb garaynaya, maalinba meel baan ku ridaya anuu xoolahayga haysta maso nafteena aynu tababarno. nafteenu inay naga adkaato maaha, nafteenu waxa ay rabto waa inaynu noo ku niraahno hadaynaan awoodin mar walba inaynu niraahno yes ma aha. yes sometimes waynu odhan karnaa markaynu u baahannahay ama aynu rabno aynu awoodno, laakiin hadaynaan awoodin ama maalinta aanay qorshaha iyo budgetka inoogu jirin waxaynu leenahay may. marka ma aha qof kasta oo inala soo hadla haddaanay wixii emergency ahayn in aynu babababa intaynu nidhaahno aynu dhaqaalaheenu u jebino. budgetka markaad samaysid waxaad yeelanaysaa step aad raacdid, waxaad yeelanaysaa wax kastaba qorshe u samaysid oo aadan ka hormarin. qof kasta oo baahan inaynu wax tarno waa muhiim, laakiin bisha makaa go'daa budgetkaaga deen meed u qaadaysaa. xawlaada intaad tagtid heblow iga sii bixi, heblaayo lacag 200 sii daahi, qofkana lacagta u diraysid emergency miyuu u baahan yahay ma sugi karaya bisha dambe aad budgetkaaga ku dartid haddaadan hayn. haddaad haysid alxamdulilah, haddaadan hayn bisha dambe qofkii ma sugi karaya. isweydii qofka weydii maxaad u rabtaa. marka inagii qorshe ma lihin, gabadha kugu xigtaa kugu soo wareegaysa waxay kuonaysaa 200 baan rabaa. adigoo haddaad doontid bishiiba 2 casho ka harsantay 200 baad siinaysaa. 2 casho bishii markii la gaaro gabadhii lacagta kuma keen adiguna shil lacaga ma haysatid. marka insha allah bidmillaahi kariin 5 ruleskaasi aad ayuu aniga ii anfacay. aad iyo saving yeesha waxay doontaba ha noqotee ha dhayalsan ha yaraysan. lacagtu markay kusoo gasho lacagtaada ka safe garayso insha allah bidmillaahi kariin. waxaad fikrad ka qabtaan commentiga inoogu reeba as always. dhammaantiin waa mahadsantiin jazaakalla khayr. intaynu video kale ku kulmayno khayr iyo barwaaqo ayaan idiin rajeynaya insha allah bidmillaahi kariin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.